si madhaleys looga dhigo dhexdhexaadinta iyo wadahadallada laga dhex waday madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha amniga loo qalqalgeliyo dibna loogu dhigo howlaha doorashada dadka doonaya dib u dhaca dalka waxay sameynayaan isku day walba oo lagu fashilin karo hawshaas socota dadka dhaliila ra'iisul wasaare Roble waxay ku eedeynayaan in uu dusha ka daawanayo xaaladda socota oo ay rumaysan yihiin in uu wax ka abuuray dadka tuhunka qaba waxay doodooda ku xoojinayaan oo isweydiinayaan kow yaa culayska ahlu sunna ku soo jeediyay qorqor si uu u joojiyo dhexdhexaadinta uu ka dhaxwaday Roble iyo Farmaajo labo khilaafka ra'iisul wasaaraha iyo madaxweyne Farmaajo muxuu u yahay mid amniga uun saameeya saddex muxuu yahay ujeedka Roble ee burburinta amniga tusaale waxa kuugu filan ayay leeyihiin arrintan nisa wasaaradda amniga ciidanka xoogga dalka iyo mid hadda ka taagan Galmudug sida lala socdo waxa istaagay howlgalladii al-shabaab ka dhanka ahaa ee Galmudug shabeellaha hoose shabeellada dhexe Hiiraan iyo xogihii sirdoonka taas oo sababteeda ay ku eedeynayaan in uu leeyahay ra'iisul wasaare Roble intaas oo dhan danta laga leeyahay waxa lagu fasiray in jilbaha dhulka loo dhigo dawladnimada curdunka ah ee Soomaaliya meeshan laga saaro horumarka iyo ammaanka ay bidhaansanayeen dadka Soomaaliyeed